بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. magacaygu waa Safwan Axmed Cabdulqaadir ama sida dhalinyartu ama ardayda ama asxaabtu taqaano Safwan Dhowleere kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda Dhaka International University ee caasimadda dalka Bangladesh kana mid ah ardayda sanadkan ka qalin jebisay jaamacadda DIU Faculty of Business Administration. horta wadankan ninka waxaan ku noolaa ma aan joogay ilaa muddo 4 sano iyo badh waxyaabaha cajiib gala ama waxyaabaha ku soo maray aad u furbaday mar alaal markii su'aasha la weydiiyay ka kale ma garanaysaa ay ka kala kacaysa muus waxa dhacday niyow berigii aanu wadanka ku cusbeen 2016kii bilihiisii dambe dabeeqadiisii ayaa qisa cajiib ay ku dhacday waxaan maqli jiray beri hore dadkan yani Eeshiyaanka ama Hindida Pakistaanida Banglaadeshiyaanka dadkan isku umada ay way kala gogoynuna wax maqli jiray dadku ixtiraamka yani wax yaqaanaan noociisa waalida ama ka badbadinta kale ay yaqaanaan sheekahan baan u hayay markaa waan cusubahay wadankan ku cusub yahay jaamacadda iyo bee'ado dhan dadka maalmaha kamid ah waxa dhacday anigoo degdegsan oo galaas ku degdegsan meesha nabadda iska kulushahay xaaladeeda waa dareem kartaa arday jaacadii aduu doono xaafad fuu ka yimiyo isla galaaskii yaanu ku dhaafno afsaamin marka waxa u dhaqanay iyaga marka hore shaqada yaaran horta mar ay faansiye macallimiinta kale oo professorada jaacada wax ka dhiga ama macallimiinta iskuulada xataa wax ka dhiga iyo ardaydu inaanay meel wada istaagi karin ama aanay liftiga oo kale elevatorka aanay wada raaci karin oo kale xitaa waxa dhacday maalmaha kamid ah macallimiintii wax loo dhigi jirtay kamid ah coordinator-na ka ahaa qaybteen ayaa liftiga koray dadka liftiga wada garanaysa magaalada dadka ku nool waa badanka waa jaam oo la siiraysiga moogtid dadka waxa si jaamkii hadii imka tago cabaar buu sii soconaya hadana 10 mirir kale haduu doono soo soconaya ka gaarsiinaysi moogtid marka waxa saaran macallimiintii in yaro staffkii jaamacadda oo dafqaanay Soomaalidii ardaydii kale Bangladesh ay ku joog dhaguma dhigin waxa isleeyay maxay ka hadlayaan ma ay islaamowti waan kora dadka macallinkayga muu waan ayro iska kay ma garanaysaa iska muu waan ayr buu dajiyay kulay uu fahmay in ma garanaysaa aniga in ixtiraam daro oo inaan bay'ado kale ku cusub ay u dareemay markii aan daadagnay ayuu xafiiskiisa ugu yeedhay wuxuu ugu yiri kaalay Safwan waan u tagay markaa aniga waxaan siday wax caadi iyo macallinka ama wuxuu kala hadli doonaa waxyaabo regular caadi ardayga iyo macallinku ay ka wada hadlaan marka semester 1 baan haba maanaya xiisad buu igu lahaa uu dhigi jiray waan u tagay wuxuu guri soo fadhiistay markaas uu guri niyo Soomaalidii la yiri ama Afrikaankiinaba bila ixtiraam baa tiin buu guri waan yaabay waxaan yani ixtiraamka ku hadlay marka ixtiraamku ku soo dhaco qolo kasta meel ku nool ixtiraamka yani sidii u taqaanaadeen ixtiraamka Soomaalida waa la yaqaanayo dadka weyn ka xishooda dadka ka yarana ma garanaysaa si caadi ah oo dhaqmo laakiin aan waxba aan hadalka la gaban Soomaalidu waxa la ifraad wala tafriida moogtay waxa kamana badbadiyaan aadna ma gaabiyaan وين مرة واحد في معلم أي احترام يتحدث يعني احترامك وكهلي احترام نوعي وكهلي بس مركز يقول ما دقن كينا أيه كوسي وتجري يقول إن معلم كذا اللي تسمع رعد ما أدمي الله فريسته ما شاء لعب وين يا بدي واحد سيدها يعني نكنا وكهلي يوم مركز سوي فانسي يقولوا هذه ما أنت اللي تجري نصب كريه يعني أنه لكن كي مركز شركتي بيشرح حدثنا اللفتيات وضع الراعين مالي أنا ودي استاجين وحدا أنا ودي عبد لكن والله غني وقارن معنتي مركز يعني أنا كان لي قصدا وما سوى قادرني احترام ضرب معلمين احترام معلمين مركز سوى احترام ويكاد المعلم أن يكون الرسول المعلم يكون الرسول نقول كسبته احترام المعلم كولي لكن احترام كذا يعني كده الاحترام كي يعني احترام جنيه ذلك الصومالي ده أما بحث أفريقيا ككلام مسلمين تام عربته وكلام أنت يعني dhaqanhaan isira shabahan laakiin kooda waxa mid ka badbadayso xadka laga tuuray markii markaas aan ku wala yaabay markuu saaybu waan u qaadan waxaan ku macallin anigu waxaan dhaqankiina wala ixtiraamaya waan ku laakiin khalad baan arkaa markaas uu guri waayay wax maxaad yani dooda maxaad ku adkaysaa guri waa dood jabal kale yani ay guri moot markaas aan ku yaa ugu khayr badnaa baan ku muslim ma tahay maadaama wadanka loo degan yahay haa guri muslim baan ahay guri misan ku يا بالآذن كأما ومتى أردن يا يقول شرف بدنا أما وكرامة بدنا أما وقوم الله إلا احترام
markaasuu yidhi dee nebi maxamed sal alla alay wasalam markaasaan ku nebi maxamed sal alla alay wasalam nin basiidaba habaan ku yidhi oo aad yacni tawaaduc loo hambala asxaabtiisa dhex fadhiista oo waxaan ku yidhi majaaliistooda la fadhiista la shaaheeya cuntada la cunaa booqda حديث كاست مركز مقشوع حد مقصا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا عينك النبي قال هكذا تشوف نبي هبلو هلكا ودا مريا نبي هبلو ضمير ودا صار نبي هبلو فرس ودا صار نبي هبلو اور ودا صار marka halkaas dhan waxa laga dheehanayaa baan ku in qofka si kasto uu yahay hadana isaguna ay tahay inuu hambalnimo sameeyo adiga lagaga baahan inaad ixtiraamto laakiin qadar ixtiraamkiisa uu qadar gaarsiisay oo kale markaan qisada u sheegay isna dib isugu noqday waxa diintina dib muslim oran kara sida ma dhaqankiisa uu ku aadayay inuu ka tago marka waxyaabaha mufaaraqaadka cajiibka ah ka mid tahay dhaqankooda in aad inoogu doon yahay kale inkastoo markii dambe aan iskala qabsanay waxa leeyahay marka timaado meel laga ilaahay isa la istiraayo oo iskala qabsanay waana wax de horta sina u fiican ixtiraamku laakiin dadkan eeshiyaanka oo sida loo ogaay ixtiraamkooda yani dadbadis aad u farbadan ku jira ardayda markasta horta waxa jira waxyaabo si common ardayda oo dhan loogu waaniyo ama culimadii inaga horeysay ama dadkii inaga horeeyay ama waalidiinteena ama macallimiinta oo kale ee ardayda oo dhan ay kula dardaarmaan horta marka ugu horeysa dad islaam ah waxa inoogu filan dhiirigelin iyo inaynu ka shidaal qaadano xadiiska nabiga man salaka dariiqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة قفك وطانا أما قاعدة وضعوا علمي كبرانيو إلهي بقى أفضل وضعوا جنة كتبه أو كلا وقد يقول كلا يكفي ومركو نيت كترأوا أميسين هاي ونيشتو لكن سيدة جودهانيد وحن وقولتها لها أرضية الصوماليات إن وحبر الشذو إنما العلم بالتعلم بل العلم هو إسبريس أرضي يقول معلم هو حلقة يبين ونقضاء وحيابك هو بنا إرشادات هذا وسيو لكن علمي هو إسبريس أردت بنقل الشيء جودها أردت الصوماليات وحن كل دردان لها إن علمي يجوا إسبران وأيجوا هراء مقرن ساي إسكيلس كده كرديان أو أي نولا هو مهندة أما فكر كأما قيمته أو برنا وحوق صار وهذا اللي يريه الرادي مركز كلنا وحن قدرها إن يقدران إن تواضع إلى هنا مركز الله كاشدان كقوم يسنى وحوي قف كأرضي إن أنا وحبرشني سامع وأنتي سأنا كحري أفرتن سنة منهج جامعة لقى قلم تبني أكلية سببت علم مرة ماذا وقل ربي زدني علما أنبياء على هذه له علم النفس هذه مركز واحد قلت لها إن أي مركز تكون دلالة إني واحد سياسي ذن أنا كستا سنة كستا عدو جاعد لما عدو ولي جاعدي ووضع إن أي علم أي سياسي ذن ومركز تيجوا يسبران العلم بين التلاميذ إن يسكاشدان ويجوا يحوض برتان إن أيجوا أنت يسكو دنا أما يسكو فكلا أما يسكو كلا سيسو كلا أي كفكرتو سيدي واحد يري وده فائدة سنة هين وهي مركز توا مركز جمع عليه هذا كون أحسن وأنت كنا نشوفه meelaha ugu jaaniska badan la adduunka ayuu kamid yahay ay course ay nooc adoonaysa waxa la helay iyagoo aad u jaban marka loo eego adduunyada kale marka waxaan leenahay majmuucoon iska dhigtaan ay iskaashadaan raadsadaan waxyaabo dheeriyo ay wax ku baran karayaan way cilmigan yare jaacada lagu dhigayo waa furayaan hadana adigu aan course kale saayida ku darin hadana adigu sidaada aad yaani self study aan sameyn waxyaatan wax badan aan hore u dhaqaaqin qof meel ku kooban baan noqonaysaa marka in dadaalaan waxbarashadana insha Allah ta'ala ay nuu bahalka uu wato uu ka sii wato insha Allah ilmaan kula talin lahaa ardayda Soomaaliyeed ku sugan dalka Bangladesh iyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed oo dhan hadda buu kaliya trigeed baad ugu xidhay oo farbaday laakiin buugu igu saameynta badnaa wuxuu ahaa kitaab la yiraahdo كيف يفكر المسلمين في القرن ال21 سيفكر عندك المسلمين تاع قرن كوبلاتنا وحقرن عمر بكار حكاك ورث مسماسق احنا يا قبيلته iyo qurqurna israaci adigu مسماسق baa la isku dhaaban maynaya مسماسق wala waxa ku qurxanaan lahaa dadka kale inay sheegaan laakiin hadda ay weydiisay waxaan oran lahaa qof degan tabiicad wanaagsan dadkana jecel si dadku u sheegeen والله هو بيجي قرط أنا هوايات بدن مليه لكن بعرفش كبدل إله هو أيام تعالى مرة عياره مرة ضوضاء مرة معلم في النقطة ذاتك كوتش في النقطة
magaca uga dhigi lahaa dulqaad iyo samir yeelo nolosha wax kale ma lagaga bixi karaa waa adagtay ma jiraan bay dadka wax kale lagaga bixi karaan labada ahayd taladii ugu wanaagsanayd aabbahay way siiyey waxay ahayd go'aanka soo qaadanaysa adiguna ka yimaado taladii ugu xumaydna waxay ahayd inaan saaxiibna ay guur bari tahriib isaguna muu tahriibay inuu waddanka joogaa waxaan ku khasbaa waddanka oo dhan sagiir walaa kabiir inay wax wada bartaan waana tala malaha anfacaysa shaqdi anfacaya inuu noqonayo malaha burco magaalada burco meelo fara badan aan booqday way jiraan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba Malaysia oo kale waa meel qurux badan mar baan booqday Ethiopia waddankan jaarkana waan booqday Djibouti waan booqday laakiin meesha aan jeclaan lahaa inaan mar labaad booqdo oo gobolka Sanaag gaar ahaan waliba buurta Daalo Abdelhadi Barcelona Italy Sergio Busquets Blue لفولة في الأولين والآخرين وفردها اللي بقيله بلاي ستيشن بريسون بريك بلاك نايمر لندن ليفربول أديداس الجزيرة أفريقيا هبل شاه شاورما خبرات قدر ايرويس هرقيسة دانموندي waxaan ma helinayaa saaxiibkay Cabdilxafiid iyo dhamaan aqoon guud waxaan kaloo aan halkan ka salaamayaa oo ka bogaadinayaa dhamaan ardaydii saaxiibada ahaa walaalaha ahaa reer Bangladesh gaar ahaan reer Daamundi waxaan oran lahaa dadaala waxbarashada iyo juhdiga halka ka sii wada guud baan idin rajaynayaa insha Allah taala